waxaana laga dhaadhiciyay kownkan san hadaba sheegay Sheekh Abdul Qaadir Jilaani baa ka taliya waxaan xusuustaa marka habeen barkii marka la kala seexdo intaan magaalada ka baxo on dhul buuralay oo magaalada u dhawaa fuulo yaan habeenkii oo dhan waxaan leeyahay Sheekh Abdul Qaadir Jilaani oo Sheekh Abdul Qaadir Jilaani oo Sheekh Abdul Qaadir Jilaani oo ya maxaan doonayaa marka waxaan rumaysanayaa Sheekh Abdul Qaadir Jilaani inuu meel walba joogo wax walba hayo caawana haddaan gacmaha taagto muraadkayga inaan gaadhayo arrinkaasi waxaa la yidhaahdaa ceel nin galay baa laga warsadaaye aniga waan ku soo gubtay aniga 7 jir anigoo ah 17 sano jir dariiqada waan soo maray mar badanna waan sheegay cibraan u sheegaya qaadiriyaan ahaa zaydiciyana waan ka sii ahaa marka tafsiirka waxbaan ka akhristay naxwada ilaa khulaasatu ibn maalik waan akhristay fiqhiga ilaa minhaajka qaybihiisa hore waan gaaray riyaad saalixiinka waan loo akhriyay tafsiirka wax badan baan loo akhriyay halkaasaan maraya 17 sano waan jiraa laakiin maxaan ahay suufi baan ahay dariiqa waxaan xusuustaa hadda markaan dib u fiiriyana la siyaaba wixii aan rumaysnaa waa waxaan hadda aan ka sheekeynay wax la mid ya dab ninku gubtay baa ka guda wax waa la soo gubtay waa ku soo gubanay waxaan xusuustaa habeenada ka mida magaalada Beledweyne magaalo u dhow luuq jeelo la yiraahdo deganay oo aan dalabada cilmi ku ahay waxaana laga dhaadhiciyay kownkan san hadaba sheegay Sheekh Abdul Qaadir Jilaani baa ka taliya waxaan xusuustaa marka habeen barkii marka la kala seexdo intaan magaalada ka baxo on dhul buuralay oo magaalada u dhawaa fuulo yaan habeenkii oo dhan waxaan leeyahay Sheekh Abdul Qaadir Jilaani oo Sheekh Abdul Qaadir Jilaani oo Sheekh Abdul Qaadir Jilaani oo ya maxaan doonayaa marka waxaan rumaysanayaa Sheekh Abdul Qaadir Jilaani inuu meel walba joogo wax walba hayo caawana haddaan gacmaha taagto muraadkayga inaan gaadhayo caqli darradana ayadana miisaal baan idiin soo qaadaya annagoo habeen xadraynayn habeen barkii baan xadrar ku jiraa waa gelin dambe annagoo xadraynayn ayaa wadaad da'diisu aan ku qiyaasay 70 sano meelaha jira oo dhalashadiisu reero xasan ah ayaga annagoo xadraynayna ayuu habeen barkii xadrada nala soo galay aadna xadrada u yaqaan xadradii markuu nala soo galay xadradii buu noo shamiray shaawush baa la yidhaahdaayo waa ninka xadradu markay dhex socoto intuu dhex galo dhexda istaago iyo kolba dhinac u jeesadaa markaasuu marqaamiyaa ragga shaawush baa la dhahaa marka meeshii buu dhex istaagay oo kolba dhinac u jeesaday oo kolba dhinac wadaadkiisu u waday noola waday baashii ayuu hal mar intuu kor aaday iyo qadaadka ku dhacay qab nin culisna waa dhulku ka soo go'ay markuu dhulka ka soo go'ay ayuu marka wuxuu leeyahay saas uu yaala qadaad markaasuu wuxuu leeyahay wari qabta waan duulayaa wari qabta waan duulayaa wari qabta uu leeyahay annagii ma annaan fahmin war wadaadku ha duulo jannada ha aaday faraha ka qaade wadaadka qabtaanu isleeyahay qaar xagga hore kaga fadhiisteen qaar dambe ay kaga fadhiisteen wadaadkii baa ka celinayna inuu duulo markaasuu wuxuu samaynayaa meeshan dhexe ayuu intuu saa u boobootiyo ayuu wuxuu leeyahay wari celiya buu leeyahay saasuu xagga gadaalna waan kaga fadhiyaa lugaha xagga horena waan kaga fadhiyaa dhexdu marka saa leeyahay wari qabta waa boodahay waa duulahay ilaahay baan kugu dhaariyay caqligu wuxuu na siin waayay war ninka shalay isagoo lugaynaya idin yimid maanta ma duuli kare faraha ka qaada marka yaani waxa way dadkan xuquuqoodii la xid ummadan arkaysaani waa ummad in loo taraxumo u baahan waxaani marka waa waxyaalo noocaas ku soo gubanay waxa keenaya marka qodobka way bini aadamka caqliga uu ku fikira la laga xiro qodobka labaad ta'wiilaadka baatilka waxyaalan haddaan arkayniyo wax la mid ah dadkii waxa looga dhigayaa waxyaalo kale loogu fasiraya waa kinaayaad baa la dhahaa
majaas baa la dhahaa isticaara la dhahaa ma aydaan fahmin war diinta waxeedu waa daahir reebaadiyuhuna waa fahmaa quraanka haddii loo fasiro soomaa weligaan cilmi soo akhrisan ka reer magaalkuna waa fahmaa quraankuna waa daahir macnihiisu shariicaduna waa daahir wax la yiraahdo waxba qarqarsoon wadaadada kaliya yaqaano oo kinaaya la dhahaa majaas baa la dhahaayo shirkiga ku dhunta meesha ayada gabaadka shirkiga waa halka waa macnahan ma fahmaysaan iyo ma garanaysaan iyo majaas baa la dhahaa iyo waa gabaadka shirkiga ku gabado waa ayadana dhibaato kale waa dhibaatada saddexaad wax way sababta saddexaad waa taqliidka wadaad horaa maray iska dabagal wadaadkii weydii oo dabagal oo warkan kala shaandhe ma laha taafraadna waxa weeye in badan oo kamida ruuxu markuu jah ku haysto ama magac ku haysto ama dhaqaale ku haysto xaq si kasta uu arka laguma karo rag fara badan baa kursigooda iyo jaahooda iyo dhaqaalaha ay meesha ku qabaan xaq ay arkayaan u qaadan waay sidaana gaalnimo iyo riddo ugu dhintay qaar badan marka waxaan waa fahansan yihiin laakiin waxa u diidan bini aadamka lagama fujiyo markii uu meesha xogaa mala'a iyo madaxa iyo xogaa ku haysto lagama fujiyo qaar way laakiin kulli ma waxyaalahaas waa asbaabta marka keenaysa waa